dowladda Soomaaliya ayaa doonaysa in ay dib u dhis ku samayso hanaankii cadaaladda iyo maxkamadaha ee dalka waxaana markii ugu horeysay taariikhda lagu biiriyay hay'adaha garsoorka Soomaaliya 6 dumar ah. Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa dal ay ka jiraan colaado, musuqmaasuq iyo cadaalad darro. wariyaha VOA Cabdicasiis Bilow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya. dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshooyin ay dib ugu habeyn ugu sameynayso hay'adaha cadaaladda ee dalka oo burbursanaa dhowr iyo 20 sanadood ee ay colaadu ka jirtay Soomaaliya. waxaa markii ugu horeysay lagu biiriyay shaqaalaha garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliya 6 dumar oo ka qayb qaadanaya kobcinta adeega garsoorka. Cabdullaahi Axmed Jaamac oo ah wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la dardaarmay gabdhahaasi ku biiray hay'adaha cadaaladda ee dowladda Soomaaliya. waxaa la idin dhiibay cadaalad inaad dadka cadaalad ugu garsoortaa inaad cadaaladda ka shaqaysaa inaad cadaaladda wax ku maamushaan anigoo kolba gabdhuhu waa ku maamuli doonaan laakiin raggaan u jeedinaya inta badan waxbaa la yidhaahdaa maxkamadaha xeerlaaninta kadib waa la dura shacabku wax badan bay aqriyaan. wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991kii hanaankii maxkamadaha cadaaladda ee Soomaaliya ayaa meesha ka baxay. dalkana kama jirin sharci kala dambeyn iyo cadaalad hufan. waxaa jiray dhaqan kuwa dembiyada gala aysan la kulmin ciqaab, musuqmaasuq xitaa dhex galay hay'adihii cadaaladda eex iyo u garbayn. Samiira waxay ka mid tahay 5 dumar oo dhawaan ku biiray xeerlaalayaasha Soomaaliya. waxay ka soo qalin jabisay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo jaamacad ku taala dalka Maleeshiya. waxay ku rajo weyn tahay Samiira inay aqoonteeda dhinaca sharciga iyo cadaaladda ee ay soo baratay ay ku biiriso hanaanka maxkamadaha oo ay xaqsoorka ka shaqayso. muhiimadan ugu weyn waxa waaye inaan la direerno musuqmaasuqa cabasho badan dadka shacabka ka timid oo hadii maxkamadba ma jirto lagu leeyahay garsoor ma jiro oo meesha lacag lagu kala qaatayo qofku wuxuu ku leeyahay asagoo wixiisa u jeedo oo wuxuu ku leeyahay qofkan liga dul siinayo qofkan la siinayo because lacag uu baxsaday. horta waxa soo dhinaa cirib tirno oo sharaftii iyo heybadii ee garsoorka aan dib u soo celino taasaan ku rajo weynahay danka baa Soomaaliyeed. saraakiisha sarsare ee cadaaladda ee Soomaaliya ayaa doonaya 6 dumarka ah ee ku biiray garsoorka inay si gaar ah isha ugu hayaan dambiyada ka dhanka ah dumarka iyo carruurta. waxyaabaha muhiimka ah oo waxay ka sugayaan waxa especially gabdhaha oon rabo inaan gacan idinku siiyo oo ku xigeenka koowaad diyaar u yahay inuu gacan idinku siiyo dambiyada laga galo dumarka, carruurta iyo dadka tabarta yar in aad u noqotaan kuwo ka hormariya hanaanka cadaaladda ee Soomaaliya hadda waxa uu leeyahay 17 xeerlaaliye waxaana qorshuhu yahay in gobol kasta oo Soomaaliya ku yaala la geeyo hal xeerlaaliye lagana hirgeliyo hanaan garsoor iyo cadaalad. laakiin qobarada ka faaloota dhinaca sharciga iyo cadaaladda ayaa qaba in talaabadan dumarka loogu biiriyay garsoorka inay tahay mid weyn oo loo qaaday dhinaca soo celinta amarka iyo kala dambeynta Soomaaliya.